kale ayaan weydiiyey cabdalla qaalib oo ah wariye madax bannaan oo ku nool magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar. marinka rafax waa albaabka toddobaad ee isku xidha Gaza iyo caalamka, waxaana uu yahay midka keliya ee shaqeeya mararka qaarkood marka laga reebo Karam Abu Salim oo isaga Israa'iil gacanta ku hayso, ahna albaab ganacsi oo Israa'iil ay u soo mariso magaalada Gaza cuntada iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka ah. waxaa jirta in muddo ku siman sanadkii 1993 ay heshiis wada gaadheen Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiintu iyadoo ay garwadeen ka ahayd midowda Yurub, waxaana markaas meesha ka maqanayd oo aan heshiiska qayb ka ahayn dowladda Masar oo ah dowladda ugu muhiimsan iyadoo hadda gacanta ku haysa marinka rafax uuna dhaco dhankeeda waqooyi. xilligaasi muddo kadib Israa'iil waxay ka baxday heshiiskii, waxaana ay isku dayday inay mar kale ka dhigto dhammaanba wax kastoo gelaya magaalada Gaza inay kasoo galaan dhanka Karam Abu Salim oo ay iyagu gacanta ku hayeen, si ay ula socoto wax kasta oo gelaya gudaha magaalada Gaza iyo dhaqdhaqaaqa kooxda Xamaas. marka la fiiriyo muhiimadda uu leeyahay Falastiiniyiinta dhankooda waa albaabka ama halka ay ka helaan nolosha uga furan caalamkaba, ama marka qaarkood la furo inkastoo inta badan xidhan yahay, haddana xilliyada daruuriga sida markan oo kale iyo waa meesha ay wax ka soo gaadhaan, waana meesha dadka ajaanibta ah ee baasaboorada kala wata ee gelaya gudaha magaalada Gaza iyo kuwa kasoo baxayaba waa albaabka ay isticmaalaan, gaar ahaana xilliyada la isticmaalo ama Falastiiniyiintu isticmaasho xilliyada xajka iyo wixii lamid ah oo ay diyaaradaha ka raacaan magaalada Qaahira. marka waxaan ognahay in marinkan oo sida aad sheegtay muhiim ah marna la furayay marna la xirayay, haatan oo xaalad adag Gaza ay ka taagan tahay, maxay tahay sababta Masar ay u diidan tahay inay u furto? dowladda Masar sabab badan bay sheegtaa inay u xidhay albaabkan. waxaa ka mid ah in ay Masaaradu u aragto haddii albaabka la furo in kumanaan iyo malaayiin reer Falastiin oo kasoo cararaya nolosha adag ee ka jirta magaalada Gaza iyo xisaarka iyo godoominta ay soo geli doonaan gudaha dalka Masar, sida ka dhacday dalalka Urdun iyo Lubnaan oo iyaga hore ay Falastiiniyiintu aad u harqiyeen, qaarkoodna ay dadkii muwaadiniinta ahaa ka badan yihiin ama ku dhow yihiin. qodobka kale Masaaridu u xidho albaabkan waxaa ka mid ah arrimo amni oo waxa ay ka cabsanaysaa Masaaridu ama dowladda Masar waxay ku andacootaa ama ku doodaa inay ka cabsanayso haddii albaabkan la furo inay marin u noqoto kooxo xidhiir la leh Xamaas. marka sababahaas bay Masar u xidhaa albaabkan. shalay waxaa kusoo biray isaguna qodob kale oo Siisi uu sheegay oo ahaa in laga yaabo in dad badan oo Masaarihi ay ka galaan albaabkaas islamarkaasina ay ku biiraan kooxaha xag jirka ah siduu isagu sheegay Xamaas iyo Islaami Jihaad iyo kooxaha kale ee la midka. bal ka waran arinta ku gadaaman marinka Gaza, saameyn oo dhinaca diblomaasiyadda noocee ah ayay ku yeelatay Masar iyo Israa'iil iyo Falastiiniyiinta guud ahaan markii aad dhanka ka eegto? arinta dagaalka hadda ka soconaya magaalada Gaza waa un nooc ka mid ah dagaalo hore u soo dhacay, inkastoo la odhan karo kani wuu ka wen yahay dagaaladii hore markaad eegto sida cidiyaha loogu dagaalamay ama Israa'iil ay hadda dagaalka u wado iyo ka xoogan siday hore u samayn jirtay, iyo gaar ahaan sidii falkani uu ku bilowday ee Falastiiniyiintu ay ku galeen gudaha Israa'iil oo ahayd markii koowaad sida la sheego ay dhintaan tiro intaas leeg oo Israa'iiliyiin ay ku dhintaan gacanta Falastiiniyiinta ama guud ahaanba carabta. dagaalkii waxaa la sheegaa 1967 xilligii Jamaal Cabdinaasir ay isku dayeen Masaaridu inay ku weeraraan Israa'iil, laakiin iyaga weerarkii laga horeeyey, in xataa dagaalkaas dadkii ay dowladda Masaaridu kaga dishay Israa'iil ay ka badan yihiin kuwa hadda ay Falastiiniyiintu dileen. marka si loo eego waa xaaladda bariga dhexe oo sii kacsan, awoodaha oo aad moodo inay soo korayso awoodda Falastiiniyiintu ama awoodda Xamaas iyo kooxaha kale ee la midka ah ay kor u soo kacayso, iyo sidoo kale arrimo la xidhiidha Israa'iil iyo amni ahaan su-aale inay ka yimaadeen ma tahay dal lagu noolaan karo mise maaha. sida laga warhayo muwaadiniinta Israa'iil waxay ayaamahan buux dhaafiyeen ama u qaxeen magaalooyinka waaweyn ee dalalka Yurub iyagoo u arka in aysan meeshan ahayn meel u qalanta in lagu noolaado. marka dagaalkani wax badan buu sababay, islamarkaasina waxaa laga yaabaa haddii uu dagaalka ku xiga haddii uu mar kale ka qarxo iyadoo xaaladdu sidan tahay inuu kaasina wax intan ka badan kasii bedeli karo mantaqada. kaasina waxa uu ahaa cabdalla qaalib oo ah wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar oo qadka telefoonka
iigu waramayay. haatana wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku dhawaaqay maanta in 2 ka mid ah dadkii u afduubnaa Xamaas 7 bishan Oktoobar la helay meydkooda. waxaa jira dad kale oo weli ay haystaan Xamaas.